midowga golayaasha culimmada Soomaaliyeed iyagoo ka duulaya waajibka Allah subxaanahu wa tacaala uu saaray culimada ee caddaynta xaqa, faridda wanaagga, reebidda xumaanta, difaaca dadka dulman iyo u naseexaynta madaxda iyo bulshada, waxay walaac ka muujinayaan cabashooyinka isa soo taraya ee la xiriira murannada iyo xuquuqda dhulka ee magaalada Muqdisho. qaala Allahu subxaanahu wa tacaala: waid akhada Allahu miithaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunah. wa qaala subxaanahu wa tacaala: ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan. iyadoo laga duulayo waajibkaas waxaa la soo jeedinayaa qodobadan: 1. dowladnimada, cadaaladda iyo waajibka nasiixada. ilaalinta dowladnimada, xasiloonida, kala dambeynta hay-adaha qaranku waxay waajib weyn maadaama ay yihiin tiirka lagu ilaalinayo diinta, nafta, maalka, sharafta iyo xuquuqda bulshada. dowladnimadu waxay sii xoogaysataa marka ay ku dhisan tahay cadaalad, isla xisaabtan, ilaalinta hantida shacabka iyo ka hortagga dulmiga. sidaa darteed, tilmaamidda khalad jira, ka digidda dulmiga iyo u naseexaynta madaxdu ma aha wiiqid dowladnimo, balse waa qeyb ka mid ilaalinteeda iyo toosinteeda. qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam: addiinu nasiixa. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi diintu waa nasteexo. waxaa rasuulka la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam, yay u tahay naseexo? wuxuu yidhi: lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati lmuslimiina wacaamatihim. waxay u tahay naseexo allah subxaanahu wa tacaala iyo kitaabkiisa iyo rasuulkiisa iyo madaxda muslimiinta iyo caam ahaan ummadda muslimiinta oo dhan. xadiidka Muslim ayaa wariyey. sidaas darteed, nasiixada loo jeedinayo madaxda iyo hay-adaha dowladdu waa waajib diini ah oo looga dan leeyahay in xaqa la xoojiyo, khaladka la saxo, dulmigana laga hortago, iyadoo la dhowrayo midnimada, xasiloonida iyo maslaxadda guud ee dalka. qodobka 2. xurmada hantida iyo dhulka. shareecada islaamku waxay si adag u ilaalisay hantida qofka, mana bannaana in qof laga qaato dhulkiisa ama hantidiisa iyadoo aan jirin xaq sharci ah iyo hannaan cadaaladeed. qaala subxaanahu wa tacaala: qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam: ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun. wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam: dhiiggiinna, maalkiinna iyo sharafkiinnu waa idinka xaaraan. xadiidku waa muttafaqun calayhi. wuxuu kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam: man dalama qayda shibrin min alard duwiqahu min 7 araadiin. qofkii dulmiya oo dulmi ku qaata in la eg taako oo dhul ah, ilaahay casa wajalla maalinka qiyaamo wuxuu qoorta ugu duubaa intii ku aadanayd oo dhan oo 7 dhul ah. xadiidkaasuna waa muttafaqun calayhi. sidaa darteed, dhul si sharci ah qof ugu sugnaaday loogama qaadi karo awood, amar maamul, cabsigelin ama dano gaar ah iyadoo aan la marin hannaan sharci iyo cadaalad leh. qodobka 3. cabashooyinka la xiriira dhulka Muqdisho. muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay cabashooyin ka imaanaya qaybo ka mid bulshada Muqdisho, kaas oo ku saabsan dad muddo dheer haystay dukumentiyo milkiyadeed, balse muran laga geliyey ama laga qaatay dhulkoodii, kuwo lagu soo rogay lacago aan saldhigooda sharci u caddayn, iyo muranno aan loo marin hannaan garsoor oo hufan.
waxaa kale oo jira cabashooyin ku saabsan in magaca ama awoodda hay-adaha dowladda loo adeegsaday arrimo ay dana gaar ahi ku jiraan. qodobka afraad, xaqiijinta xogta iyo wada tashiga. arrimahan laguma salayn cabashooyinka shacabka oo keliya, balse waxaa sidoo kale xog waraysi iyo wada tashi lala yeeshay guddiga ay dowladdu u xil saartay arrimaha dhulka oo ay qeyb ka yihiin qaar ka mid ah culimmada Soomaaliyeed. xogta la aruuriyey iyo wada tashiyada la sameeyey waxay xaqiijiyeen jiritaanka cabashooyinka iyo dhibaatooyinka la xiriira arrimaha dhulka. sidaa darteed waxaa muhiim ah in arrintan lagu wajaho cadaalad, mas-uuliyad iyo tallaabooyin muuqda oo laga ilaalinayo xuquuqda shacabka. qodobka shanaad, nasiixo iyo baaq ku socda madaxda iyo hay-adaha dowladda. waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan hay-adaha ay arrintani khusayso si walaaltinimo iyo mas-uuliyad leh ugu naseexaynaynaa in la dhowro xuquuqda milkiyadeed ee shacabka, lana joojiyo tallaabo kasta oo lagu duudsiinayo xuquuqda dhuleed ee muwaadiniinta. in qof haysta xuquuq milkiyadeed oo sharci ah aan laga qaadin hantidiisa, muran iyo doodna laga gelin. in si madax bannaan loo baaro cabashooyinka la xiriira dhulka, lacagaha la dul saarayo shacabka iyo eedaha ku saabsan ku takrifalka awoodda dowladda. in lala xisaabtamo cid kasta oo lagu xaqiijiyo boob, musuq-maasuq ama adeegsi awoodda dowladda si dano gaar ah loogu gaaro. in madaxda dowladdu u madax bannayso laamaha garsoorka wax ka qabashada cabashooyinka dhulka la xiriira si loo helo hannaan cad, fudud oo hufan oo ay muwaadiniintu cabashadooda ku gudbin karaan kuna heli karaan jawaab cadaalad ah muddo macquul ah gudaheed. in arrimaha muhiimka ah ee dhulka lagu maamulo daahfurnaan iyo sharci si loo ilaaliyo kalsoonida bulshada iyo sumcadda hay-adaha qaranka. qaala subxaanahu wa tacaala: in allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl. xilku waa ammaano. awoodduna qofka xaq uma siinayso inuu ku xadgudbo hantida iyo xuquuqda dadka. qodobka lixaad, baaq ku socda hay-adaha garsoorka. waxaan hay-adaha garsoorka ku adkaynaynaa kaalintooda dastuuriga iyo sharciyeed ee ah ilaalinta xuquuqda bulshada iyo ugarnaqidda dadka si madax bannaan, cadaalad iyo eex la-aan leh. qodobka toddobaad, nasiixo ku socoto ganacsatada iyo dadka ka macaasha arrimaha dhulka. waxaan ganacsatada, nootayooyinka, dulaalada, bangiyada maalgashiga ku samaynayo dhulalka la boobayo iyo cid kasta oo ku howlan iibsashada, iibinta, wareejinta ama ka macaashidda dhulka ugu naseexaynaynaa inay Allah ka cabsadaan, kana fogaadaan hanti lagu helay dulmi ama xaqdarro. qaala subxaanahu wa tacaala: walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. ha isugu kaalmaynina yacni dembi iyo xadgudub. maal lagu helo dulmi iyo hanti qof kale xaq u leeyahay waa xaaraan, barakana ma leh. qofkii ku lug yeeshaana wuxuu halis gelinayaa adduunkiisa iyo aakhiradiisaba. xaqa qof leeyahay kuma lumo, kumana duugoobo waqti dheer oo ka soo wareegay iib ama wareejin. sidaas darteed
waa in si dhab ah loo hubiyaa xaqa mulkiyadda, lagana fogaadaa ka qayb qaadashada iib, wareejin ama macaash ku dhisan dhul si xaq darro ah looga qaatay ciddii lahayd. gunaanad, ugu dambayn waxaan allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu dalkeenna ku sugo cadaalad iyo ammaan, madaxdeenna iyo hay-adaheenna qarankana waafajiyo gudashada ammaanada, dadka dulmanna xaqooda u soo celiyo. wallaahu waliy الtawfiiq, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.